gacanta كانوا ده هو مديوك أنا تلفون مو جديد بو حفرة حين يقوستان نعلاق عندكم حتى مو جديدين تلفوني ربع ليه برتي تلفون وين ولتي waxa ay ahayd xilli hore oo saaka ah inta uusan falka dhicin aniga oo xeebta kaamiro la taagan diyaarinayana sheeko la xiriirta Swedcon waxa ay soo maray wiil dhalinyaro ah aniga iyo qof aan wareysanayay ayuu inooga digay burcad ugaarsata dadka taleefanada wata markaas kadibna waxaan u soo dhawaanay dhinacii dadka ay u badnaayeen iyo aagga hoteelada ku teesan xeebta Lido qiyaas ahaan 20 daqiiqo kadib waxaa dhinacii aan ka soo baxsanay inoo dhaafay dhalinyaro ku qeylinaya wariyaa gabdhaha ka leexda markii aan dhinacaas u milicsadayna waxa indhahay igu qabteen laba dhalinyaro ah oo dadka jimicsanaya u muuqaal eg oo dhinaca laamiga iyo xaafadaha u sii baxsanaya iyo laba haween ah oo dhankeena u soo ordaya nasiib xumo iima suura gelin in burcadda aan kaamirada ku qabto waxaase sheeko kooban ayna dhex martay haweenkii ay dhaca u geysteen oo ahaa gabar iyo habareerteed oo xaamilo ahayd dhaawac iyo in telefoonkii ay wateen laga qaato ayayna isugu dareen wax ma idin gaarsiiyeen ما يمديها برتي لو درن بسم الله gacanta ka geliyeen كانوا ده هو مديوك أنا تلفون مو جديد بو حفرة حين يقوستان نعلاق عندكم حتى مو جديدين تلفوني ربع ليه برتي تلفون وين ولتي بسم الله waxaa gaaray dhaawac fudud oo gacanta ah telefoonka laga qaatay iyo dhaawaca gaaray waxa uga darnaa argagaxa ku dhacay markii iyada oo hawo iska qaadanaysa toorey lala kor yimid hadda marka anaga duubeenoo kale waa noo imaado waa nooga digtay أنا هرني يا دي هرني وشايبه وحين معنا يدي هذا أذيك هذا إنها كو أركيس أو حلقات أركيس ما مود إذا عندك كلام وعنو معناها لا نتوري لو مود أركيس هالمرة ما الله مرة بان واحد من الجوك تهوى بس ما نقصد عنها waa yarkii inoo digayay inta uusan falka dhicin waraysi uu siiyey RTV dhacdada kadib soo gudbintiisa waxaan isaga deennay in ammaankiisa uu halis galo maadaama uu ka mid yahay dadka sida joogtada ah xeebta Lido ugu yimaada inay u soo jimicsi tagaan waxa uu nala wadaagay in dhacdooyinkan ay xeebta ku soo badanayaan subaxii hore iyo galbaha qaar kooxdan manaxayaasha ah waxa ay beegsadaan dadka jilicsan sida haweenka iyo qofka ay u arkaan inuu ku mashquulsan yahay moobilkiisa waxay iska dhigaan ciyaartoy ama dad jimicsi u yimaado xeebta markii ay dadka kala yaraadaanna wixii ka dambeeya 7 subaxnimo ayuu howlgalkoodu bilowdaa wiilkii dhalinyarada ahaa ee nala hadlay waxa uu noo sheegay in maalmo ka hor isla xeebta ay dhaawac daran ugu geysteen wiil ay ka dhacayeen telefoonka qaaliga ah ee iPhone 13 Pro Max xilliyada qaar waxaa dhaca geysta kuwo qoryo ku hubaysan kooxda wax dhacayana ma aha hal iyo labo ee waa kooxis haysata oo halkii ay xeebta ka kaluumaysan lahaayeen dadka baarta kooxdan ayaa marka ay dhaca geystaan u baxsada dhinaca degmada Kaaraan iyo xaafadaha buurta saaran iyadoo dadka halkan sida joogtada u yimaada ay noo sheegeen in burcadaas ay badanaa waxyaabaha maanka dooriyo ku isticmaalaan hareeraha xeebta Lido si kasta oo ay ahaataba haddii aad ka mid tahay dadka xeebta Lido u damaashaad jimicsi iyo daawasho yimaada waxaa lagula talinayaa in aadan kaliya telefoon la aadin goobaha ay dadku ku badan yihiin ee cirifyada xeebta ah waxaa kale oo booliska degmooyinka Kaaraan iyo Cabdicasiis saaran mas'uuliyadda muwaadiniinta xeebtan u damaashaad yimaada maadaama xeebta Lido ay martigeliso kumanaan dad ah oo isaga kala yimaada degmooyinka caasimadda Abbas Xuseen Muuse RTV Muqdisho